بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan bilaabeynaa mashruucii xige ee saddexaad. Projectigan wuxuu ka kooban yahay waxa waaye isaga dhan waa restaurant ama maqaayad yar waaye. waxaan loo design gareeyay qaab oo modern ah. marka waxaan kasoo bilaabi doonaa mashruucaan sameyn doono waa midka hortiina ka muuqda saa arkaysaan. marka laba qayb uu ka kooban yahay. qaybta koowaad waxaa waaye diyaarinta projectiga skeletonkiisa ama waxyaabaha asaasiga. qaybta labaadna waxaa waaye renderingka iyo furnitureka interior designka. marka qaybta koowaad ayadaa sii kala qaybsami doonto oo 10 1 2 3 waxaas yeelan doonto sidii caadigeed. marka waa bogsiinayaa filekan waxaa haysta ardayda oo dhan, ardayda kalaaska dhigto oo dhan way haystaan. marka waxaan u saamixi waayay waqtigu aad noogu yar iyo mashruuca waxyaabo badan la sameynayo. ardayda badanaa waxaa waaye way fahansan yihiin softwareka. laakiin waxaa factor muhiim ah meesha ka maqan oo ah in la practice gareeyo waxa lagu celceliyo. taasna waan ka wada hadalnay. marka aad baan u bobsiinayaa waqtiga xiriirna u ah awgiis waa bobsiinayaa. haddii aad meel fahmi weyso waa muuqaal mar walba jooji iyo kusoo cesho daawo. marka halkaas kasii wadayna hadduu ilaahay yaraa. mashruuca marka 2D-giisaan kasoo bilaabeynaa. 2D-giisa waa kan maqaayadda yarta haysana waay. marka handid waxaan sharaxnay oo sheegnay dadka aan helin weli anytime oo file qof kuu soo diro ama ku siiyo mar walba waxaa jeegaraysaa leeyirada kaa qarsan. hadda kan waxaa waaye leeyirada cabirka way qarsan yihiin. see u jeegaraynaysaa Ctrl+L aad taabanaysaa and then layerkan hadda uu qarsan yahay dimension D. markaad daartid waxaa arkaysaa all the dimensions ay leedahay. qaar baa hadda delete oo copy waxaas ku haray. marka waa halkaanay ku hareen. marka waa iska qarinaysaa cabiradii waxa oo dhan iska qari ama iska delete ayagoo dhan maadaama 3D ay samaynaysa ma u baahnid. 3D waxaa kaloo u baahneen waxaa waaye objectska ku dhex jira projectiga. hadda marka for example oo kale window 3D kala tago there is a lot of objects ma arkaysaa arkadka sidaan ku yimaada mar walba aad u fulxun yahay. plus waxa waaye culays oo ka dhigaya filekan culays oo ka dhigaya kaliya ma ahan in oo maxay ahayd foolxumo kaliya ma ahan laakiin fileka culays ka dhigaya waa tahay. marka waxaan sameeyaynaa waan deleteynaa waxa la wixii objects oo dhan waan ka deleteynaa. marquee tool waxaan sameynaa highlight garanay areas oo dhan object Ctrl A delete object dhan waan ka delete. sidoo kale qaybtan oo VIP roomta ayadana waxaan dhahnay waan ka deletenay waan ka deleteynaa waxaan u baahnay VIP roomta ma loo baahno. okay okay nice. hadda markaan jeegareeyo fileka nadiif oo kusoo hara. marka halkan oo ka bilaabanayaa 3D-giisa waxaan rabnaa inaan u ekeysiino meesha usocon waxaa waaye halkan inaan fileka sidaan oo kale u ekeysiino. dabcan renderka aad ugu qurux badan yahay modelka waxaana keenaya waxaa waaye renderka naftigiisa shaqo iyo waqti badanaa la geliya maahan inaan mar soo qaado iska sawir maahan waqti u baahan yahay. laakiin at least isku dayna inaan skeletonka keeno gurigan shapekiisa inaan keeno maqaayad san u taalo qaybta dambe oo kushinkii iyo waxaas storeka maqaayad inta waaye meesha kamarada ay taagan tahay oo laga sawiran waxaa waaye waa dhanka badda xigta waaye meeshaan badda saaran tahay. okay waana project sax ah oo actual project waaye qof client loo sameeyay waaye. waan bilaabeynaa marka ugu horeysa waxaan ka bilaabeynaa waxaa waaye inaan saxno windowska inaan saxno. for example oo kale let me go back to the picture. windowska inaan saxnaa u baahannahay. windowska dhankaa jira kasoo bilaabeynaa waan saxeynaa waaye. waxaan isku dayaa inaan hayo angala kale kan waa kuwii hore sawirada hore waa kuwan. okay kan waa muuqaalka yes waxaan ka bilaabeynaa sida android aan sameyn oo kale dadka kalaaska joogay windowskana ka bilaabeynaa. marka windowska ayaga waxay ka kooban yihiin laba ka kooban yihiin kuwa hoose iyo kuwa kore. kuwa hoose waxaa waaye 1.3 times 2.6 saas waaye. marka ayaga soo sameynayna marka ugu horeysa. okay back to business.
marka waxaan sameynaa 3D aan tagaynaa daaqadahan u baahan waan iska deleediyaa marka ugu horeyso kuwaan waan deleediyaa kuwaan deleedayaa labadan xabo waan deleedayaa waxaa sidoo kale deleedayaa columnska ku jiro meesha column dhan ma u baahan inaad deleedo waa igan column control a delete okay dirishada intaan gelinayaa marka window caadi soo dooranaya balac waxaan ka dhigayaa dhahne 1.3 joogan waxaan ka dhigayaa 2.6 kadib halkaan aan gelinayaa marka okay actually inta dhulka ka kacaysan waxaan rabaa inay 0 tahay oo halkaan dhulka ay saaran tahay marka halkaas aan geynayaa marka arkaysaa kadib gudaha gelinayaa daaqadan control e ah leh gudaha gashay way waxaa inoo harsan marka bulkeetigan derbigan marka hore 10 u ahaa waxaan ka dhignay 20 aan ka dhignay marka dambe 20 aan ka dhigi karnaa nice okay marka dariishadan in la qurxiyo u baahan tahay waa processkaas marab waa sharxnaa marab waa sameynaa laakiin waxaan jeclahay inaan skip gareeyo halka xabaa sameynaya laakiin hadda kadib waxaasoo kale dhan waa ka boodaya marka halka xab daawo ayaga dhan waxaa la rabaa inaan sameyn kartid marka kuwa dariishada wax ka bixinaya line-kan ku dhex jiro si uga bixinaya ku dhufanaya control T halkaan tagaya opening lines ale kabacdi 3D ku dhufanaya meeshaan tigta ka qaadaya okay ala uu baxaya line-ka jaab markaysa waa ku celinaya control T yaa leeyahay frame-ka waxaa rabaa meesha alwaax uu ka yahay inaan ka dhigo frame oo metal ah oo grey colorka grey-ga marsan yahay halkaan ku dhufanaya paint dark grey aan ku dooranaya dark grey again dark grey ka u dambeeyana glass itina soomeen taxasutaan aan dhawid okay windows kan saana way kaadeen marka arkaysa marka midkan window kala ka koreeyo oo halkaan saaran oo soo daraagariyay laakiin joogiisa waxa waaye 1 meter bis way arkaysa soo u maadaasana okay labadan markay saas tahay geeska ku dhajinaysaa marka geeska ku dhajinaysaa dan 20 senti soo sikanaysaa marka 0.2 another window kala ku dhagan laakiin saa isuma saarno 1 meter kale u sii jirtaa markaysa 1 meter gaaba u dhahay ayuu saas ku wataa in 1 meter kale sii kartaa raba xagee ka keen waxaan meel kale kama keenin waa windowgan midkan weynka mid kor saaran markaysa 1 meter gaaba u dhahay hadana asagii 1 meter kale gaab hadana asagii marka alwaaxan waa sameyn doonaa laakiin hadda intaan sameeyay halkan daaqadan sameeyay waxa ku jeenaa kan iyo kana ku jeenaa okay waa ku biina hadana labadan control shift D le halkaan ka qaban halkaas ay keenay you see jaa waxa haystaa saddexda window saana ku haystaa okay how about the color marka colorka ka waran derbiga marka fiirisid sawirka kale waxa arkaysaa derbigan waxa saaran color saaran oo actually nice color saaran sawirkaasi waxaan lagu dhex fahmayaa la soo dhaweyshido kale arkaysaa texture aad u fiican baa saaran colorka marka arkadku ku yimaada ayaan dhawid ardaydii hore waxaan u sheegnay kuwa aan arkin casharka aan qaadan 3D in arkadka uu leeyahay library oo texture uu ku imaado uu leeyahay and this color you can find this color ma fahanti xagee ka keenaysaa marka laba mid sameyn karnaa inaan abuurno laakiin maadaama aan mar walba qaadan sida kale loo abuuro adinka idin deenaya inaan sameysaan marka hore ana waxaan ka baarayaa in colorkaas uu igu jiro modelka iyo in kale fileka ah haysataan uu ku jiraa number 3 ku qoran qof walba filekaas number 3 ugu qoran kana ku dhufanaya marka control T yaa leeyahay modelka waxaan ka fiirinayaa number 3 so number 3 iyo mu jiro inaan abuuro waa markaan hadda waa abuuraya laakiin waxa ogaataan in fileka ah haysataan uu ku jiro marka options element attribute service alanahay kabacdina color caadi iska doonana cadaan new duplicate aan dooran okay number 3 oo bixinaa inta marka okay alana meeshan texture-ka waxaan ka raadinaynaa marka oo dhanka library architectka waliba leather ka raadinaa leather so this is fabric how fabric leather for fabrics leather waa kana kala karaa markaysa number 3 kaas waa okay alaya marka so derbiga waxaa saaraya kalka hadda sameeya saaraya marka actually derbiyada dhan baa saaraya
so darbiyada ha doorto waxa ii fiicneed inaan control ka dhaho marka waan ka wada qaadaya waxaan saarayaa number 3 okay ale nice markaysaan kalka fuul hadda waa kalka meesha noo saaran okay maxay inoo xiga marka waxay inoo xiga marka ku laabatid sawirka waxaa arkaysaa muuqaalka markaa tagno kale waxaa arkaysaa kan waa sameyn waxaan hore marka alwaaxa noo haray alwaaxa inaan sameyno asigana sidoo kale okay see u sameeyaa marka alwaaxan waxaan u sameynayaa marka wax kale maahan darbi caadi ah soo dooranaysaa 2D ku sawir ama halkan ku sawir wax dhib ma lahan darbiga thicknesskiisa waxaa ka dhigayaa dhahne 5 cm ka dhigaysaa 0.05 halkan ku dhufo ilaa halkaas geey marka gudaha iga dhaxgala darbiga markaysaa gudaha iga dhaxgala marka 2D aan tagaado gudaha iga dhaxgala wax dhib ma lahan waa kan markaysaa banaanka soo bixinaa marka banaanka soo bixinaa outside alle jaaw darbiga waa kana marka meeshaan iga dhaxgala markaysaa darbiga marka waxaa dhahnay joogiis maxaa ka dhigaynay 4.3 ka dhigayna Soomaaliya hadda qaldaneen 4.30 ka dhigay okay waa ku biinaya marka laba xab kala kasii ku biinaya maadaama ay tahay 1 2 iyo 3 ay tahay laba kala kasii ku biinaya markaas okay 2D ga tagaya marka waa sameynaya hadda ku wareertaan darbigan madowga oo iska dhex jiro dadka qaar laga yaabo inay ku wareeraan darbiyada waxa ka dhigtaan hadaan ka dhigay maxaa dhahay ayran cad ka dhiga madowgan ka saar markaysaa waa kana mid waa ku biina halkaan ageena hadana adoona ku biina isna halkaas ageena qasab ma ina cad ka dhigta hadda arki kartid darbigaaga naysaata waa fiican qaabka material ahaan marka material ahaan waxaan saarayaa materialka meesha igu diyaarsan ee u koreeya saaraya marka the first material u koreeya waa ka general oo hooseeya waxaa leeyahay match all the materials okay leeyahay marka can you see this marka almost waxaa arkaysaa marka in aan keenay alwaaxi iyo kan aan keenay waxay inoo xiga marka beamka yarka inaan ku dhijino meesha kadibna aan kor u qaadno marka okay back to business marka darbigan waxaa iloobay inaan idiin sheego 5 mitir maahan darbigan waxaa waaye 5 mitir bar waaye waa darbiga maqaayad ku wareegsan yahay control T 5 mitir iyo bar aan leeyahay marka ama 5 mitir control markaysaa meesha u tagay okay beam aan soo dooranaya marka beamka halkaan aan saaraya anoo cabiri waxaan ansixin waxaan cabiri masaxa halkaan asgeynay cornerka geynay marka beamkaan aan ku dhufanaya sectionkiisa inaan saxaa marka cross sectionkiisa sax control T aan leeyahay marka koowaad colorkiisa aan saxaya oo waxaan ka wada dhigaya cad aan ka wada dhigaya okay alle marka labaad joogkiisa waxaan ka dhigayaa 10 cm ka dhigayaa thicknesskiisa waxaan ka dhigayaa 5 cm ka dhigayaa okay halkaas aad marka okay muuqaalku soo laabo so 10 cm ka dhigayaa 10 cm intan 10 cm ka dhigayaa 10 cm nice marka rotation ku sameynaa inaan halkaas u jeediyo waaye darbi wax yar iyo dhaxgal markaysa waa inaan ka soo bixiyaa xasirka xataa banaanka soo saar control shift E rotate iyo copy banaanka keena asigana labadan waxaa isku leeyahay intersect isku leeyahay marka kan waxaa dhana marka waa dhamaystiraysaa waxaa geenaysaa cornerka geenaysaa ardayda qaar already way sameeyeen waa sawir ay soo direen waa arkay marka masha Allah very nice way keeneen marka kan waxaa sameynaya waa koobiyeenaya marka ilaa hadda fiirsid muuqaalka waxaa arkay midka cadka waxaa ka sii sareeyo cadka hadda inta laga arko kaas inta la arkay cadka waa kan waxaa ka sii sareeyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 xabo okay 11 xabo oo alwaaxyo steel ku jiraan oo yar alwaaxyo sameeyay saar marka fine maxaan sameynayaa marka aniga midka koowaad waxaan sameynayaa horta kana basiis ku biyana halkaan ageena kabacdi control T yaa leeyahay joogiisa waxaan ka dhigaa dhahana 5 cm ka dhigaa thickness-kan waxaan ka dhigaa 3 cm ka dhigaa markaysa color ahaan control T yaa leeyahay waxaan dooranaa let's say wood walnut horizontal oo kale okay yaa leeyahay marka halkaan aan ku dhijinaa marka hore
kadib 10 koobi aan ka sameynaa marka control u aa leeyahay 10 koobi ka sameynta distribute ii dooran okay aa leeyahay halkaan ka qaban halkaas aa geynaa marka markaas okay midkan jaab nice wuu soo baxay marka okay step xiga wuxuu noqonayaa marka alwaaxda inaan ka saaro line-kan cagaarka ee 3D markaa joogtid indhaha kaa qabanaya quruxda badneed oo sidii maxaa la dhahay xajka camal u saaran in laga qaado marka waxaan dooranaynaa line u eg alwaaxa ama line madow iska doonaynaa waxaa sheegaysaa u fahantid kana horta marka hore ka qaadaa midkan le ka saaraya marka hore madow okay okay ale marka difference marka fiiri jaab alwaaxan waxaa ujeedaa in caadi loo arkayo laakiin kan wax cagaar dul saaran markaysa ma qurux badna marka kaasaan ka saarayna dadka aan fahansaneyn waxaan ka saaraya markaan control t codkayga hadduu gaaban yahay wax dhib malaan inaa xal rabaa waqtigan indhaha ka samey kartid waxyaabaha qaar maba loo baahnaba inaa maxaa la wax walba lagu sharax sacdan adu basic matid waa tagteen advanced aa tihiin distributionkii 2D wax badanaa la fahmay maasha allah waxaa la rabaa marka in isku dayi karo waxyaaba qaarna isku dayid waaye qofna inaa ka shutid maa inuu ku bushi karayo sacdan okay intaan waa keenay waxaa noo hara marka aadan dib ugu soo laabto sawirkaada dib ugu soo laabto sawiradii aawa actually muuqaalkay ku fiican tahay muuqaalka yes so kan waa sameynay inta ilaa halkaasaa geenay midkaan noo hara marka inaan asana sidoo kale halkaan saarno kadib muuqaalka intaan ku keenay halkaan kusoo xirinaa waayahay kan naftigiisa waxaa ka samayn kartaa column aa ka samayn kartaa oo cabirkan leh haddaa xasuusto kan cabirkiisa waxaa ahaa 10 centi ahaa column aa soo dooran kartaa joogiisa waxaa ka dhigi kartaa nus mitir oo kale cabirkiisana 0.1 kalarkiisana cadaa ka dhigi kartaa okay aa dhehe si uu ekaada midkan kale meesha yaalo halkaan iska dhig columnka control d halkaas geey nice halkaan ka qabo marka dhexda ka soo qabo meesha buluugta kor u qaad calaamada stretchka kugu doonaato stretch height halkaas geey marka jaa markaysa uu soo baxay kan waa midkaan hadda aan sameynno kaas waaye dhanka kalena markaad tagtid waxaa arkaysaa inuu kusoo xirmaa dhanka kale geeskaas waxaa rajeynaya muuqaalka inuu geeskaas tegi doono hopefully muuqaalka codku waa ka xiran yahay codku waa ka xiran yahay laakiin cod uu leeyahay actually that's it sound okay qayb kaloo nala aaday interiorkoo nala aaday interiorka hadda ma u baahnin waayahay intaas ku keenaa marka hilibkan waa inoo qaybta labaad